hal xiraalahan aad ugu fiirso iskuna day inaad ka jawaabto nin lagu magacaabo Smith ayaa meydkiisa laga helay gurigiisa galab axad ah markii uu faldambiyeedkaasi dhacay waxaa guriga joogay 6 qofood oo kala ah xaaskii Smith cunto kariyihii qaaska ahaa adeegihii adeegto nin beerta ka shaqeeya wiilkiisii curadka ahaa muddo kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo booliis ah oo baarayay sida uu falkaasi u dhacay dhammaantood dambi baarihii booliiska ahaa oo lagu magacaabayay Stephens ayay uga warameen qof kasta iyo hawshii uu qabanayay goortii uu dhacay faldambiyeedka oo ahayd maalin uu roob daran da'ay xaaskii ninkii geeriyooday ayaa ugu horeysay waxaana ay sheegtay in ay buug akhrisanaysay xilligaas kariyihii waxa uu sheegay inuu quraac diyaarinayay adeegihii waxa uu sheegay inuu carruurta iskuulka u waday oo uu maqnaa adeegtadii waxa ay sheegtay inay alaab dhaqaysay kii beertana waxa uu sheegay inuu beerta waraabinayay xilligaas wiilkiisii curadka ahaa oo maalin ka hor ay aabihiis saf dhaafeenna waxa uu sheegay inuu ku maqnaa guriga saaxiibkiis ugu dambeyntii waa la ogaaday dambiilihii falkaasi ku kacay waana la xiray haddaba daawade keebaa isleedahay waa la qabtay 6daasi qofood sheegna sababta aad isleedahay waa loo xiray like muuqaalkan sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garee mahadsanid